bilan todobada boqol ee kun ee falaawaris habluhu waxay sheegayaan dadka kugu xidhan inay raggi faqiirin tahay arinta maxaad kaga difaacaysaa wallaahi anigu horta ragga faqiirinta anigu ma oran ragga faqiirintu waa sida erayga isla fahano anigu waxaan ku ragga Soomaalida shanta Soomaali ragga Soomaali meel kasta dunida daafaheeda ka joogan baan dumaro aynu ilaashano oo yaan hadii guriga la gaadhay yaa wax adag lagu xirxirin ragga Soomaaliduna inta meesha ku xirana waa fiqiidna oran maayo waa taajina oran maayo waa ragga Soomaaliyeed aan mid kalena kuugu daro hablo xilay intaas oo dhan waa fiqiiri horta qof nin Soomaaliyo Ilaahay abuurto adduunka korkiisa saar xitaa ka yarnaha ina keenaha nin Soomaali oo fiqiiri ma jiro fiqiirna qalbiga laga noqdo horena waa kugu sheeg maanta aniga layga ma dhaadhicin karo nin fiqiir oo Soomaaliya magaalada kugu nool ma jiraba waa wada taajiriin bilanay waxa jira hablaha Soomaaliyeed oo dhani aragtidaad si kala duwan ay uga falceliyeen waxa jira hablo badan oo ku taageeray iyo hablo badan oo sida sheegtay ragga ajaanibtahay ay qabaan oo ka soo falceliyay hablaha maxaad ku leedahay والله horta waa run hablo badan xitaa way ila soo xiriireen bilan anagu arrinka waa wadnaa la igu dhahay marka ana u bilaabay arrinkii hablo badan way soo taageereen horta hablaha ajaanibtu qaba Soomaali kuma jiraan oo way naga tageen marka waxa leenahay marka soo noqotaanu idinku ay noo ahaato markaas wada hadlaynaa markaas wada hadlaynaa daaci bilan ragga Soomaaliyeed aad u hiilinayso dumarka Soomaaliyeed waxay ku antacoonayaan markaad 1 milyan gaadho iyo rajada aad lahayd inaad ragga Soomaaliyeed ku soo jeesan doonto isla markaana aad fikrada kale ka hadlayso arinta maxaad kaga jawaabaysaa amiire waxaan anigu ragga Soomaalida ku uri ma ahayn waa wax Ilaahay ka dhigay waa wax Ilaahay ku manaystay waa wax xitaa maanta aan is oran karo hadaa xitaa adduunyada kala tagto aad maxaa afka qalaad kala barbarato aad kula doodi karto raggayga Soomaaliyeed waa ragga adduunka ugu wanaagsan waxaan anigu falaawaris ragga Soomaaliyeed kaga calasha ku lahaa falaawaris si waayogtaanu bara bulshada isticmaalo waa waxay ragga Soomaaliyeed iyagu garteen iyo wanaagga iyagu garteen weeye falaawariskaas